saacadii aan soo dhaafnay dilil siyaabo kala gedisan kaga dhacay gobolkan Banaadir ayaa faahfaahin dheeraad ay ka soo baxayaan iyadoona wararka ka imaanaya degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir ay ku soo waramayaan in toogasho ay ka geysteen rag hubeysan bustoolado waxa ayna toogteen laba dhalinyaro ah oo laga garanayay degmada Yaaqshiid sida ay warbaahintu u xaqiijiyeen dadka degmadaas gaar ahaan dadka ka agdhawaa goobta uu dilka ka dhacay oo ahayd xaafadda suuqa bacaadka ee degmada Yaaqshiid waxaa sidoo kale goobta iskaga baxsaday raggii toogashada geystay iyadoona aysan jirin faahfaahin dheeraad ah oo intaasi ka baxsan iyo cidda ka dambeysay dilkaasi sidoo kale isla xalay xaafadda Siigaale oo ka tirsan degmada Hodan ee magaalada Muqdisho waxaa lagu toogtay haweeney kadib markii ay rasaas ku fureen rag bustoolado watay iyadoona warar hordhac oo ka soo baxay ay sheegayaan in haweeneydaas ay ka tirsaneed shaqaalaha dawladda Soomaaliya waxaa muuqanaysa inay sii kordheen dilalka qorsheysan ee ka dhacay magaalada Muqdisho tan iyo markii la gudagalay bisha barakeysan ee Ramadaan howlgallada ay ciidamada ammaanka ka sameeyaan inta badan magaalada Muqdisho hase ahaatee waxa uu la jira dilalka qorsheysan ee ka dhacay Muqdisho dhinaca kale wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa waxa ay ku soo waramayaan in deegaanka Muqokuri ee gobolka Hiiraan oo 24 saac aan soo dhaafnay gacan ku haynta deegaankaasi ay isku dhiibeen ciidamada dawladda iyo ururka Al-Shabaab iminka gacan ku haynta deegaanka ay maamulayaan ciidanka dawladda Soomaaliya ee gobolka Hiiraan wararka laga helay Muqokuri ayaa sheegaya dagaalo iyo waliba sidoo kale howlgallo ka dhacay saacadii aan soo dhaafnay deegaankaasi iminka ay gacanta ku hayaan ciidamada dawladda Soomaaliya galabtii Jimcaha ahayd ciidamo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo aad u hubeysan ayaa dagaal kula wareegay Muqokuri inkastoo isla gelinkii dambe ee maalintii Sabtigi sidoo kale dagaal culus oo halka ka dhacay ay ciidamada dawladda kula wareegeen xaalka deegaanka lagu dagaalamay ayaa degan waxaana markasta dhici kara dagaal kala maadaama dhinacyada aysan kala fogeen isgaarsiinta deegaanka ayaa sidoo kale adag in laga hela xogaha dadka deegaanka saraakiisha ciidamada dawladda waxay sheegeen in dagaaladii ka dhacay deegaanka Muqokuri ay kaga dhinteen ilaa iyo 2 askari halka sidoo kale tiro kalena ay kaga dhaawacmeen waxa kale oo saraakiisha ay sheegeen in dhanka Al-Shabaabna ay qasaare gaarsiiyeen dhinaca kale ururka Al-Shabaab ayaa iyagana guulo ka sheegtay dagaalkaasi labada dhinac oo guulaha kala sheeganaya marka laga soo tago ma jirto cid madax bannaan oo xaqiijinaysa qasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalada ka dhacay deegaanka Muqokuri ee gobolka Hiiraan